Anu ku bilowno magaalada Muqdisho oo weli la dareemayo sida ay u cakiran yahay xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyadoo wararku ay sheegayaan dekedda magaalada Muqdisho uu ku soo xirtay markab lagu rarayo qalab iyo alaabooyin kale oo horay u yeelay xirada ciidamada Imaaraadku ay ku tababaraan ciidamada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. waxa ay ka dambaysaa arrintani markii dowladda Imaaraadku ay joojisay heshiis tababarada xagga ciidamada ah oo wax laga saaraya khilaafka labada dowladeed ee ka dhashay sida la isugu afgaran waayay heshiiskii dekedda Berbera. mar dhow shir jaraa'id oo maanta ka dhacay magaalada Hargeysa ayaan idinka warrami doonaa oo aanu ku horeyna bal marka hore wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad oo nooga warramaya markabkaasi la sheegay inuu ku soo xirtay dekedda magaalada Muqdisho. Cali Nuur, خوفي وحوي إن خيامة قرك نعدي هالكاس لا أما وكو حرين هاي دكاد وين مقدشو وحا مركب كان لغورة رياء أو إلهي إمين كالسعوطة قلب تراب بدن أو إنتي سبدن ويهاي كي إذا مضى قارهان حرادة إذا مضى إمارات وكتها وبران مقالة مقدشو وحا قلب كاس إنتي سبدن مركب وكو سعوطة waxaan la filayaa inta ilaa berito inuu soo gabagaboobo kadibna markabkaasi uu u shareecdo ama uu dib ugu laabto halkii uu ka yimid oo ahayd Imaaraadka. alaabooyinkaasi la sheegayo markabkaasi inuu qaadayo aadka u badan maxaa ka mid ah gaadiidka gaashaaman oo ay isticmaalaysay ama ay isticmaalayeen tababarayaal Imaaraadka u dhashay oo tababarayay qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliya oo xarun weyn oo halkan ay ku lahaayeen ay ku tababarayeen ayaa ugu badan qalabka intiisa badan qalabka sida wararka aynu ku helayno waa qalab ciidan oo tababarayaalku ay isticmaalayeen sidaan ka warqabno marka ay u kala gooshayaan magaalada Muqdisho dhinacyadeeda meel ammaanka aad looga baqo ayay tahay Muqdisho sidaa darteed waxa ay isticmaalaan ama ay adeegsadaan gaadiidka qafilan ee waaweyn qaarkood hubka uu ku xiran yahay gaadiidkaas ayaana u badan waxyaabaha iminka la rarayo. Cali Nuur, waxaad kaloo iga warantaa cisbitaal daryeel caafimaad ay ka heli jireen dad badan oo Muqdisho ku nool oo Imaaraadku dhowr sano u waday oo la xiray iyo xaalka cisbitaalkaasi. Salamin sidaad u sheegtayba xiriirkan sii xumaanaya Imaaraadka iyo Soomaaliya kaliya saameyn kuma uusan yeelan dhanka ciidamada oo Imaaraadku ay Soomaaliya ka caawinayeen saameyntiisu waxay u soo gudubtay dhanka bani'aadamnimada iyo howlo kale oo horumarineed oo Imaaraadku ay ka wadeen Soomaaliya. isbitaalkan oo dad 100 kor u dhaafaya maalintii ka helayeen isbitaal bukaan eegta ayuu ahaa oo isbitaalka shaqooyinka uu qabanayo waxa uu waaweynaa in dad tabar yar oo xanuunsan inay yimaadaan isla markaana la eego xaaladooda kadibna ay dawooyin helaan 100 qof ayay kor u dhaafayeen maalintii dadka uu adeegga siinayay isbitaalkan waxa uu ku xiran yahay ama la yiraahdaa Sheikh Zayed oo ku yaala Abu Dhabi isla markaana sameeya ama ciidamada Imaaraadku ay leeyihiin sababta ugu weyn wararka aynu helayno waxay sheegayaan in uu la xiriiro arrimaha ciidamada isla markaana dhaqaalaha lagu bixinayay ama kharashka ku baxayay uu ka mid ahaa kharashka ciidamada tababarayaasha ah halkan loogu keenayay oo Imaaraadku ay bixinayeen maadaama taa ay istaagtayna isbitaalku si taa la mid ah in uu la istaagay warar aynu helayno oo safaaradda ku dhow waxay sheegayaan in safaaraddu ay isku dayayso inay raadinayso in kale oo ay ku bedasho dhaqaalaha ay ku bixin lahayd isbitaalka balse ilaa iminka ma aanay suuro gelin waxa uu xiran yahay qiyaastii maalintii afaraad ama shanaad waxa dowladda Soomaaliya hadashay kamaanay hadlin gaar ahaan wasaaradda caafimaadka in ay hayso bedel rasmi ah oo lagu bedelayo waxa socdo sidaan ka warqabno arrinka ciidamada wasaaradda gaashaandhigga iyo hoggaanka ciidamaduba waa ay hadleen waxay sheegeen in iyaga la wareegayaan mushaaraadka iyaga bixinayaan balse tan bani'aadamnimada ma muuqato ilaa iyo hadda cid soo bedelaysa oo soo buuxinaysa.